maanta way taariikhdu tahay bishii 9 2016 maalintuna ay ku beegan tahay maalin Arbaca waxa caasimada Soomaaliland Hargeysa lagu qabtay munaasabad simi qaamsara loo soo agaasimay isla markaana ay ku qalin jabinayeen dufcadii 8aad ee ka baxda jaamacadda ADMIS fariiceeda ay ku leedahay caasimada Hargeysa tirada ardayda sanadkan ka qalin jabinaysa jaamacadda ADMIS waxay kor u dhaafaysaa 414 arday oo ka kala qalin jabinaya 7 kuliyadood oo kamid ah culumta kala duwan ay bixiso jaamacadda ADMIS ardaydan sida quruxda badan ugu labisan direyska kala duwan ee gaarka astaanta looga dhigay ardaydan qalin jabinaysa waxay kamid yihiin ardayda sanadkan ka baxaysa jaamacadda ADMIS maantana waxay u tahay ardaydan maalin farxadeed maadaama ay dhameeyeen geedi socodkoodii waxbarasho ay muddadaasi ku soo dhex jireen munaasabadan qalin jabinta waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo kala socday saddexda xisbi qaran ee dalka oo ugu horeeya musharaxa madaxweyne xisbiga UCID xubno kamid ah golaha wasiirada wasiir ku-xigeenno agaasimayaal aqoon-yahano madax dhaqameed mas'uuliyiin kale maamulka ugu sareeya jaamacadda hal abuur macallimiin waalidiin arday iyo masharaf kale tiro badan ugu horeyn waxaa munaasabadaasi ka wada hadlay gudoomiyaha jaamacaddan ADMIS Master Ihsaan Umar Ismaaciil iyo gudoomiyaha qaybta Addis Ababa ee jaamacaddan ADMIS waxayna ka warameen taariikhdii jaamacaddan ADMIS waxayna u hambalyeeyeen ardaydan qalin jabinaysa ku soo dhaweeyo munaasabadan qaaliga ah waa xafladii qalin jabinta dufcadda 8aad ee jaamacadda ADMIS tirada maanta qalin jabinaysa waxa ay dhan tahay 414 boqolkiiba 8 waa hablo boqolkiiba 260 waxa weeye inamo waxayna ka qalin jabinayaan kulliyadaha kala ah xisaabaadka ama accounting and finance maamulka iyo maareynta waa managementiga information technology dhaqaalaha ama economics development studies architecture and urban planning social sidoo kale waxaa munaasabadaasi ka wada hadlay wasiir dawlaha wasaaradda waxbarashada Maxamed Xaaji Cali iyo wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Umar Maxamed Faarax iyo aas-aasiga jaamacaddan ADMIS iyo cunsuriga Itoobiya u fadhiya Soomaaliland mas'uuliyiin kale waxay si wada jireen mas'uuliyiintan ugu hambalyeeyeen ardaydan qalin jabinaysa sheegaya waalidiintii idinku soo tabcay iyo macallimiintiiba iyo xukuumadba waxay u baahan yihiin inay arkaan wixii la idin geliyay inay idinka muuqdaan oo idinka soo baxaan waxaan kaloo idinku bushaaraynayaa shirkadaha waaweyn aanu leenahay ee baac mushtarka oo aan ka tilmaamayo hadda shirkadda Dahabshiil siiba qaybta groupka businesska bartay waxa weeyaan waxay fureen dhalinyarada waliba jaamacadaha ka soo baxay khaas u ah inay soo diyaarsadaan business balaankooda dufcadeeda exactly ma xasuustaan waa tii 8aad waxa jirtay wadan Latin America ku yaala wadankaasi sanadadii 1980 ilaa 95 wuxuu soo galay dalalka dunida xagga tirada aqoon-yahanka safka hore kaga jira waxa uu isla markaana ahaa dhinaca kalena waxaa halkaasi ka wada hadlay musharaxa madaxweyne xisbiga mucaaridka UCID Jamaal Cali Xuseen iyo gudoomiyaha golaha dhexe xisbiga Kulmiye Jaamac Shabeel iyo xogayaha xisbiga mucaaridka wadani waxayna si wada jireen mas'uuliyiintan uga marakaceen tayada waxbarashada taala jaamacaddan ADMIS xafladan qalin jabinta ah jaamacadda ADMIS ardaydan tirada badan ee ka qalin jabisay kulligiin waalidiinta iyo macallimiinta idinku soo tabcay iyo idinkaba waxaan idin leeyahay hambaliyo walaalka farxadda kula qaybsanaya dhammaan ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda ADMIS mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxa leeyahay hambaliyo ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaadooyinka ligadisan la guddoonsiiyey guud ahaan ardaydii ka qalin jabinaysa jaamacaddan ADMIS iyo 7 kuliyadood ee ka qalin jabinaya jaamacaddan ardaydii ugu sarreysay dhinaca kalena ardaygii ugu sarreeyay guud ahaan jaamacaddan ADMIS sanadkan 2016 oo halkaasi lagu guddoonsiiyey koob Abdiweli Yuusuf telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Hargeysa.